gabadha waa doon jiray garaa la fariisan jiray gabaati baa la bixin jiray abkeedii awooda sin jiray baa loo guusan jiray kan waayeel baa ka muuqata markaasna baari baa daaqasa baarabkiina hadda inay geeyeen aqal baa la dhisayaa reer baa la yeegleelayaa aroos baa jira wax kale oo qurux badan saaka waxaanu joognaa Gamaasooley waxay hoos timaadaa degmada Burtile ku taala dhankeeda waqooyi ku dhawaad 10 kiiloomitir buu jiraa waxaanu saaka u soo baxnay inaan idin la wadaago aqal Soomaaliga sida loo dhisayo reerka markii koowaad aqalkii baa la dhisaa xafladii baa duhurkii dhacdo waxa weeye albarigi habeenkii iyo galabkiina waa la ciyaaraa marka hadda aqalkii shaqadiisa la wadaa bilow ilaa dhamaad insha Allah waa daawan doontaan ina soo badiye magacaygu waa Nadiifa Maxamed shaqada maanta qabanayno halka uu waa aroos aqal Soomaali diya dhaqan aqal Soomaali wuxuu ka bilowdaa marka ugu horeysa dhig iyo udub dhigtiya udubku waa magacyo badan yihiin dhig horaad dhig dambeed dhig geesaad suuq lool dhig dhexe intaas ka koobma tan waxa la dhahaa dhig horaad dhigtan waxa la dhahaa dhig geesaad dhigtan waxa la dhahaa suuq dhigtan waxa la dhahaa dhig dhexe halkaas waxa xari kar faahfaahintay Soomaa dhigtan waxa la dhahaa dhig dambeed dhigtan waxa la dhahaa gambis dhigtan weeye dhigtan gambis la dhahaa dhig feereedi kala wata suuqdii kala waa tan waa dhig dhexe aqalka arooska qaabkan loo dhisaa daroofkii waa kan daroofka waxa la dhahaa alool kana waxa la dhahaa raar raarooyinkii la sameyn jiray hooyooyinku sameyn jiray darintu waa midaas kala baxsan oo goglan raarkii dulsaarka waa kan dhexka tuurku waa mid kale oo isaguna rarada saddex laba raar markii la saaro dhexka tuurka dusha laga saara dhexka tuur baa la dhahaa labada kalena waxa la dhahaa rara muxuu dulsaar la dhahaa aqalku intaanu ka koobmaa halkan waxa ka dhiman kabadi baa la keenaya ka dhiman intaas ka koobmaa aqalku ardaagi wata dhalinyaradu wado intaas weeye shaqada hooyadu ee muxuu ahayd aqalka dhismihiisa ay ka qabato oo aqalka muxuu ahayd intaas ka koobmaa midkii qaysee la qoray uu ka qaabkuye iska qadqaado dheeftaana ka qaadi dagaati baa la dhahaa xarigaas darintii baa lagu xirayaa dagaati qosalkaaga uu meel qabanaya aradaha dunka hadan qayla diro qomamada jacayl qondamaysiinaya aramada midoobay mabayay qire layga saaquraan oo layra diqila qonta ay galaysa ma loo qabsado aradaha dunka hadan qayla diro qomamada jacayl qondamaysiinaya aramada midoobay mabayay qire layga saaquraan oo layra diqila qonta ay galaysa ma loo qabsado أسقبوا بدياك قبوري الله قل قبوا بعد فربورك وقحوي الله قويك فلي قربك مجير قبك ما قشي قدك كما فوي قلقك نام بدان تالا قران صلاة قرفوا منا
kuma quuri karo laas qabowbaad biyaa ka qurquri lahay geel qabowbaad farbuura ku qaxwayin lahay kan waa aqal oo ardaagiisii buu wataa alooliya kabad baylinkiisii baan ku xiray halkaasaan ku awdayo ay dimada u mudo wiilka iyo gabadhu halkaas aroosku aradaha adduunka haddaan qayla dhira qoomamada jacayl qoondamaysiinaya aroos weyno irdihiisu furan yihiin inanta iyo inanka ehelkoodii baysu yimid inanta iyo inanka ehelkoodii baysu yimid ilaahoo waafaka ilaali ubaxyadaas kabuhu waa shamag oo sharcigeenni baa ogaa oo ushu waa samayo sayidkeenni baa ogaa timuhu way baasta oo baadiyaan ka imid oo biidka baladkiyo dhaliinta maanan baran wiilka iyo gabadhu halkaasay aroosku yihiin quruxdaadaan may qabriigu rida afka qadowga aad moodid waan qoosada qosalkaaga anugu meeli qabanaya محمد واقف محا شغلة قبيتي ومحي يا شغلة قبيتي محا دودي محا إلى لسان نيلها سيلو راعة إنوت المام أساسا الراعة حقي لقيه واقف سامحي صوع عنان لا واقف ما تعيش هاي وحوي راعد نيلها إيه ها هاري مرة راعد ويلقى ها والله يمسى كده يا يمسى كده صد سديد قرآن كم برت ها واقف ما أنت يا روسية افتح يا ويا افتح ولا الكاسومة ما حدا هيسا أروس كيس ده هيسا هو ولا ولي هيس أرجعني وهيس هو ولا ولي هيه حكلا لا ديكنا انت كلا ninkan yarka waxa la yiraahdaa Maxamed yarka aroosiga walaalkii weeye anigana waa walaalkii sidoo kale habar yar baa dhashay yarka aroosiyana idin ma sheegin habarartii baa dhashay marka arooska insha Allah asagana oo hambalyeelana Maxamed yare Fariid baa taaweyno yaabti walaalle heede qayla dhira qoomamada jacayl qoondamaysiinaya qaramada midoobay mabayay qire layga saar quraan oo layra diqila qoonta ay galaysa ma loo qabsado hada waxaan joognaa aqalkaada la dhisay aqalku ka askumay oo hagan ka muuqdo family-ga weynaa deganaayeen marka xiradan hadda ag joognay xirada ayaa xarun joogay marka xagaan waxa jooga neef xooga caata oo yar xanuunsan marka waxa rabaa inaan weydiiyo su'aala xoolaha markii ay caata noqdaan ama abaar ku noqdaan xanuun u noqdaan oo xaafadda lagu reebo ay saariga raacin waxa loo yaqaanaa su'aashaas in soo weydiinaya commentiga uga soo jawaaba insha Allah jawaabteedana adduunka haddaan qayla dhira qoomamada jacayl qoondamaysiinaya qaramada midoobay mabayay qire layga saar quraan oo layra diqila qoonta ay galaysa ma loo qabsado insha Allah maanta waxaan isku dayayaa fursad aan weligay hore u arag aan ugu caadiyeen aroos baa diiwaa tagay laakiin inaan fursad u helo bilow ilaa dhamaad aqalkiyo la dhisayo raradii la waxaynayo dhigihiyo la taagayo may ahayn fursad sidoo kale idinkana waxa weeye farxad bay tahay inaan idin la soo wadaago insha Allah waxaan rajaynayaa hadduu muuqaalku ku qanciyo inaad subscribe channelka Saadig YouTube-ka sidoo kale page-kana follow gareysaan insha Allah aadan idin salaamaya amaadsantihiin muuqaaladan oo kale darta inaan idin soo badiyo times up marka live ta u badinaysa hadduu muuqaalkan uu gaaro YouTube-ka waxa way 10,000 oo like waxa way aroos kale abaabulna kula anuguba ma garateen marka insha Allah hada waxaan aadanaa dhanka geela manaku maquri karo tas qabowbaad biyaa ka qurquri lahay geel qabowbaad farbuura ku qaxwayin lahay qawya ka fogiya
قربك ما جير قبك ما قشي قدك كما فوي قلقك نام بدان تالا قرص